maanta oo bisha December tahay 31 waxaan halkaan isugu nimi shirkii Heritage ay qaban qaabisay oo la isaga yimid dacalaha daafadaha adduunka ama dibadda ha ahaato ama dalka gudihiisa ha ahaato hal doorkii iyo kariimkii iyo madaxdii dalka isugu yimaadeen taas waxa suurta galiyay runtii shirkaddan Golis oo kamid ah runtii hantida dalku leeyahay mar walbana haddii shir jiro iyo barnaamij kasta oo jira nooc kastaba ha ahaadee ama mid TV ahaado oo live u baxaya ama mid ay ka caawmaan internet ha ahaato ama mid ay dhaqaalaha kaga caawin ha noqote runtii waxa weeye aad iyo aad anigu ku hadlaya magaca afka dawladda waxaan u mahad celinayaa shirkadda Golis sida mugga leh oo ay mar walba uga qayb qaadato arrimaha ijtimaaciga oo ka jira Puntland oo ay si xoog leh oo mug leh uga qayb qaadato waxaan leenahay shirkadda Golis waa mahadsantihiin waxaanu rajaynaynaa waxqabadkiinu intaas iyo in ka badanba in la idinka arko waxaan rajaynaynaa wada shaqayn dhow inaad la yeelataan shacabka iyo dawladda Puntland waxaad tihiin hantidii dalku ula yeebaad tihiin marka runtii mar koowaad iyo mar labaadba waxaan u mahadnaqayaa isxilqaanka iyo runtii wanaagga shirkadda Golis ay mar walba la garab taagan tahay hiil iyo hooba dadkeeda iyo dawladdeeda intaas markaan ka baxo runtii shirkan maanta waa shir muhiim ah oo aad iyo aad muhiim u ahaa oo Heritage ay maanta in ka qaban qaabisay Puntland awalna lagu qaban jiray Djibouti iyagana runtii aad baan ugu mahadnaqayaa shirkana waxaan rajaynayaa in wax wanaagsan ay ka soo baxaan aad iyo aad waxaan ku soo gunaanadayaa Golis waan ku faraxsanahay waana runtii hawlaha ay qabanaysana dalka u haysana waxaan leenahay aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin